عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبان دي سلام يا جود هانتين با دمان شعب كسومالان مركز الدنيا جوكتو قف كصودا ميرلو كهذا الكرا مرحلة دمان تتاجن ومرحلة شنجر إلا يكونتنجر إلا بقولتلو كهذا الكرا وحويان مدحوين ندرك ودورناي وليبا waxaan ku jiray dadkii campaign-ka weyn u galay horta dambi kasto sameeyo madaxayga uu saaran yahay waayo waxa la yiraahdo qofka inta in laga qabataa dambiga waa la leedahay madaxweynaha waan uga mahad celinaynaa wax badan uu qabtay laakiin maanta waxa la garan waayay shacabka sidii loo geyn lahaa Soomaaliya oo Soomaaliland isku bil marka waxa weeyaan shacabka in maskaxda laga dilo oo la daaliyo marka kol hadii imika la wareejiyay berbera way wareejisanta bay ka dhigan tahay nina waxa soo socon garani waxa hadda jooga ma garto ayaan leeyahay waxayna wadan aan la aqoonsanayn markuu saldhig halkan ka sameeyo maxay inagu dhici kara cawaaqib xumo baan oran karnaa hadii hablaheena noqoto hadii dalkeeno inaan ikhtiyaar u lahayn noqoto lacagta lagu wareejiyay iyadoo aad iyo aad u meeqaan hoosaysa in dalkii la iibsado oo la afduubo oo xildhibaanadu dadkii shacabka ahaa ee masayrkooda u dhiibay ay sidaa u galaanayna kalsoonidoodii ay hoos dhigaan inay siiraayeen lacag yar oo $2,000 ay ka qaataan aad iyo aad baan uga xumahay xildhibaanada ma jira xildhibaanada dambana ma soo baxayaan waxaan idin leenahay intii aad noo gaban lahayd maanta aan idin cadeynaa Muqdisho hadda aad rabtaan in Soomaaliland midowdo si toos oo dadnimo iyo raganimo ku jirto ha loo wada hadla shacabkana hadaalimina Soomaaliland baad u socotaan in la isku daree saaka diyaar baa loo yahay labada dawladood ha wada hadlaan farmaajona gaarsiiyaan leenahay waa halkii maxaa la yiraahdaa farmaajo noo geeyay miyahed farmaajo noo geeyay maraysaa waxba shacabka ciidamo shisheeyaha dhex keeninay oo waliba halkii dakhligu ka soo galay dalka ha ku wareejinay shalay baa la lahaa dekada la wareejiyay maantana waxay keeneen in berbera ciidamo shisheeye keenaan oo beritoolana Hargeysa waa la nagu xuri doona marka cid lagu xuriyo waa la garanayaa heede xukuumaddu ceeb iyo caydba way isku darsatay adduunna may qaadano way saqajaan socotay oo qofka bilaadanka xitaa markuu wax wareejinayo bilyanis buu ku xisaabtama laakiin iyagu meeqaamkooda aad buu u hooseeya waxaan idin leenahay kalsoonidayadii iyo shacabkii aad bad niyada uga disheen waxaan idin leenahay intay naftu naga bixi doonto waana idin dagaalami doona aakhiriya adduuntoona meel kuma lihdin xildhibaanadana waxaan idin leeyahay hal baa la idin u gaarsan doona shacab bad codkooda ku joogtaan